xalay ilaa shalay gelinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho ka soconayay kulamo loogu gol leeyahay in la soo jeedo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dadka horboodaya kulamadan ayaa ujeedadoodu waxa ay tahay sida ilo ku dhow ay sheegeen in mar kale dib loo soo nooleeyo rajada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee sii joogitaanka filla Soomaaliya. dadka faaloonayay talaabadii isniintii uu qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ciidamada uu duldhigay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble si looga hortaago in ra'iisul wasaaruhu xafiiskiisa galo, waxa ay sheegeen intaasi ay ka dhigtay talaabadii ugu dambeysay ee Farmaajo uu rajo kaga qabi karay in dalku uu sii hogaamiyo mar kale doorasho iyo doorasho la'aan. mowqifka midowga musharaxiinta xubno kamid ah oo kala ah Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Qirre ayaa waxa ku yimid isbedel weyn saacadihii la soo dhaafay kadib markii kulan is-afgarad ku soo dhamaaday ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. xogo lagu kalsoon yahay oo aanu helnay ayaa xaqiijinaya in kulankii galabtii Talaadada ka dhacay hoyga madaxweyne Qorqor la isla meel dhigay in laga hortago dagaal la doonayo in filla Soomaaliya looga saaro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qorqor ayaa kulanka ka xusay in uusan ogolaan doonin mas'uul ay isku hayb yihiin oo uga saameyn bata siyaasadda xilligan, sidaas darteedna ay tahay sababta uu doonayo in Farmaajo uu sii joogo. Rooble haddii wax walba gacanta loo geliyo awoodiisa waxaa ka faa'iideysanaya Cabdikariin Guuleed, Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dagaalka ku gacan siiyay, ayuu yiri Qorqor oo ku kaftamaya sida aan ka soo xiganay xubno ku dhow kulanka. Shariif oo ku kaftamaya Xasan Cali Qirre ayaa Rooble ku tilmaamay 3 sano shacbiyad aad ku sameyn weysay ayuu maalmo kooban ku sameeyay. saddexda mas'uul ayaa kala qaatay howlaha ay ku fulinayaan qorshahooda si loo badbaadiyo Farmaajo. 1. Xasan Cali Qirre iyo ciidanka Siigaale ciidamo watay 12 gaari oo dagaal ayaa warbaahinta gelinkii dambe isniintii la hadlay, kuwaas oo u badan beesha ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qirre oo ay xarun ka sameysteen xaafadaha Siigaale, Barmuda iyo sidoo kale nawaaxiga isgoyska Sayidka oo dhinaca qorax u dhac ka xiga madaxtooyada Soomaaliya. waxaana ay ku goodiyeen in ay muddo 48 saac filla Soomaaliya uga saarayaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa la rumaysan yahay in arrintan kaalin uu ku lahaa Xasan Cali Qirre, haddana uu ka shaqeyn karo in ciidamadaasi ay dib ugu laabtaan xeryahooda. hayeeshee arrintan ayaa su'aal gelinaysa awoodda ciidanka badbaado qaran oo la aaminsan yahay inay yihiin wax ugu badan oo cadaadiska ku haya Farmaajo, balse qorshahan ayaa sabab u noqon kara in awoodda Farmaajo ay dib u soo laabato. 2. kulanka Shariif iyo Rooble. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa isla habeenkii Talaadada kulan la qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isagoo u geeyay fariinta kulanka Qorqor ka soo baxday. kulanka oo saacad iyo bar socday ayuu Shariif ku dadaalay in marka hore uu xogo badan ka helo qorshaha xiga ee Rooble, isaga oo aan u furin arrinka wada hadalka Farmaajo. balse sida aan ku ogaanay xogta markii uu ku laabtay Qorqor ayuu sheegay Rooble in uu yahay nin fogaaday oo ay adag tahay in wax laga dhaadhiciyo isla markaana ay xilligan tahay in la caawiyo Farmaajo. sidoo kale howsha Shariif loo diray ayaa waxa ka mid ahayd arrimaha ciidamada. talaabooyinkan ay bilaabeen labada musharax oo ku qancay in awoodda Rooble la xadido ayaa xagal daacin kara dadaalada midowga musharaxiinta ee ahaa in Farmaajo laga saaro filla Soomaaliya ka hor doorashada, iyada oo dhanka kale laga yaabo in ay taageero badan ku waayaan maadaama ay u muuqato in Rooble uusan wada hadal la geli doonin. Rooble ayaa waxa ka go'an in Farmaajo laga saaro filla Soomaaliya si ay doorasho u dhacdo, wuxuuna qaatay go'aan ah inaysan labadooda dalka wada xukumi karin. laakiin waxa uu wajahayaa dhabarjabinta Qorqor, Qirre iyo Shariif oo haddii aan loo midoobin sida looga badbaadin lahaa ay dhabarjab ku tahay. arrimahan waxay imaanayaan iyada oo xalay kulan saacado badan qaatay filla Soomaaliya ay ku yeesheen Xasan Sheekh, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdikariin Guuleed iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, taas oo ay ra'iisul wasaaruhu ku qanciyeen inaanu wax wada hadal la ka gelin arrinta Farmaajo maadaama xaaladii adkeed ee isniintii uu wajahay aanay jirin. musharaxiinta hadda doonaya iyo xubnaha kale inay wada hadal ka dhex bilaabaan midkoodna in uusan cadeyn mowqifkiisa iyo sida uu ugu xun yahay talaabadii Farmaajo uu isku dayay in xafiiskiisa uu ciidan kula wareego.